kusoo dhawow koorsada Microsoft Excel. casharkan waxaad ku baranaysaa text to column waa casharkii sagaalaad. text to column waxaa in qoraalkaada aad ku kala shubto column kala duwan. casharadii hore haddaad soo daawanin waxaad ka heli kartaa YouTube-ka iyo website-ka Balowiti. casharada inta ay socoto koorsada ay free tahay kaliya. markay koorsada dhamaato lacag isku bedelaysaa. Objectives. casharkan waxaad ku baranaysaa what is text to column? waa maxay text to column in Excel marka la joogo? labo, how many options to use text to column? meeqa qaab loo isticmaalayaa text to column and what are they? maxay kala yihiin? saddex, what is the difference between? waa maxay farqiga u dhexeeya delimited and fixed width? afar, how to use text to column? sidee loo isticmaalayaa text to column adigoo keenayo tusaalooyin. kuwiis aan ku diri doona waxaad soo dhigaysaa groupka WhatsApp-ka marka casharka dhamaado. what is text to column? aan ka hormarno text to column maxaa loola jeedaa? text to column waxaa loola jeedaa is a method way that is used kaas oo loo isticmaalayo in loo kala jaro different columns in loo kala qaybiyo qoraalkaada waay adigoo isticmaalaya qaar ka mid ah delimited ama unfixed of width. labo, how many options to use text to column? meeqa qaab loo isticmaalaa text to column marka isticmaalayso? ana wadaarday maxay iska leeyihiin? there are two options, laba qaab jirto la isticmaalayo text to column. waxaana kala yihiin there are laba kala yihiin delimited iyo fixed width. saddex, what is the difference between? waa maxay farqiga u dhexeeya delimited iyo fixed width? farqiga u dhexeeya maxaa waaye? delimited waxaa loola jeedaa delimited is a character, waa calaamado that is used, calaamadahaas oo loo isticmaalayo in lagu kala jaro column-kaada column kala duwan, line kala duwan loo kala qaybiyo adigoo isticmaalayo sida space-ka, semicolon, comma, under, at and wixii lamid ah. sidaa tusaale fiiri, magacyadan ayaa waxaa loo kala qaybiyey first name iyo last name anoo isticmaalin space. b, fixed width maxaa waaye? fixed width waxaa waaye filligaaga in laisku hagaajiyo waaye. fill are arranged in columns, column ahaan laisku hagaajiyo with space adigoo loo dhexeysiinayo each column fill kasto. tusaale ahaan fiiri, by xaraf inaad fiiriso xarafka labaad oo kale ama xarafka saddexaad oo kale inaad isku hagaajiso waay. ama si kale hadii delimited waa automatic, fixed width waa manual waay. tusaale fiiri, magacyadan ayaa waxaa lagu kala shubay first name iyo last name. first name ka fiiri waa laba xaraf waa kaliya. waxaan filaya inaad fahantay. su-aasha afraad, how to use text to column? sidee loo isticmaalaya text to column? si aad u isticmaasho dooro column-ka ama cell-ka aad u baahan tahay inaad kala jarto. kadib dooro data tab, kadib ka dooro text, delimited ka dooro, kadib next kadib ka dooro delimited, delimitaries ka dooro sida space-ka oo kale wixii la mid ah. kadib next kadibna destinations meesha dhigayso dooro, kadibna ka dooro finish. ama waxaa isticmaali kartaa shortcut-ka alt plus a plus e ama practice-ka iyo quiz-ka waxaad ka socon doontaa muuqaalkan. waxaan soo kacsinaynaa si practical aan u sameeyno Excel-ka soo kacsinaynaa. waa kan hadda waxaan soo kacayo Excel. Excel-ka hadda halkan waxaa noo qoran names, magacyo noo qoran. magacyada marka mid walba waxaa u dhaxeeyo soo jeedidba space u dhaxeeyo. Maxamed, Adam, Ibrahim, Adam space la isticmaalay. marka waxaan rabaa kuwan inaan halkaas ku shubo. waxay leedahay saaraysaa adoo raad kale la qabanayo, kadib waxaa ku dhufanaysaa data tab. halkan daatada ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa. kadib waxaad ka dooranaysaa text column. waa kana halkaas ku dhufo. kadib waa kana labadaas qayb u leeyahay delimited iyo fixed width. delimited noo dooran, kadib next leedahay space raba halkaas sax saar space. intaan waa isticmaali kartaa tab, semicolon, comma, other. intaan isku mid waay hal wada ay isticmaalaan oo ah delimited. space hadda doortay, kadib next leedahay. halkaan waa tirtiraysaa marka. halkaan tirtiraysaa, kadib meesha dhig lahayd dooranaysaa. halkaan ka doortay, kadib waxaa leedahay finish ama enter oo dhigi kartaa. hadda waxaa ka baxay qaybtaana ka baxay. waxaa u gudbayaa qaybtan tusaalahan kale. xalaadaasaan u saaray. waxaan ka dhufanayaa fiiri alt taabana adoo hagga aadin alt taabo. xarafka uu ku soo baxay waa kana waxaa soo baxay daatis maxaa saaran ee ku soo baxay ee taabo. xarafkan uu ku soo baxay tegistigin maxaa waay e waay e taabo. xarfaha ka soconaysa macnaha kuwan waxaa ka soconaysaa xarfaha hoosta ka xariiqan. d hoos ka xariiqan waa noo dooranta hadeer. negistin ana hoos ka xariiqan, negist ana taabanaynaa. waa kana adas u baahnay uu hoos ka xariiqan. waa kana taabanaynaa waa qoraysa marka waa kaasa
waxaa qoraysa tusaale shift la qabanaysa kadibna 7 leedahay waa ka saar kadib enter leedahay halkaana tirtiraysaa halkaan waa dooran kartaa ama calaamadana ku dhufan kartaa calaamad kor ka aadaysaa kadib halkaan dooro enter waa ka saar waa intaas kaliya waa ka baxaya midkaan anda waxaa u gudbaynaa at sidaas highlight u saartay atna waa la mid data ku dhufo text column kadib delimited aan dooran next waa kan hadda waxaa isticmaal rabnaa at isticmaal rabnaa hay halkaas tir at noo qor kadib next halkaan dooro destinationka waa meesha aad dhigi lahayd waay halkaas dooranaysaa halkaas dhigi rabaa kadib enter waa kaasa halkaas waxaa ugu soo baxay delimited qaybtan waxaa waaye fixed width hadda waxaa lii diray convert single column-kan ayaa waxaa u bedela u dhahay into multiple columns column fara badan u bedela u dhahay highlight saar data ku dhufo text column waa kana midkan waxaa waaye automatic waa asiga ayaa isbedelaya laakiin fixed width adaa gacanta ku maamula meesha aad space u rabto adaa gishanayo fixed width ku dhuftay kadib next ku dhufanaya waa kana hadda halkaas ka arki kartaa Maxamed Adam Ibrahim Adam waxa ka saa xaraf ka rabta inaad geliso oo kale tusaale laba xaraf ugu horeysa raba inaad geliyo laba xaraf fartooda ku dhufanaya waa kana markaan ka qaada xariiqadan waa ku dhufanaya laba mar waa ka saa ka qaaday halkaan raba inaad geliyo sidoo kale waxa raba laba xaraf ugu horeysa oo halkaan kan iga tir double click ku sii laba xaraf ugu horeysa waa ka saa geliyo kadib next halka dhigaysa intaan kale waa isku mid wahay kan tirtir meesha dhigi lahaa soo dooro kadib next waa ka saa waxa ka dhigay hadeer 3 column ka dhigay labada xaraf ugu horeysa jaray kuwaana xarfa ugu dambeeyay jaray waxaan filayaa hadeer inaad fahantay labadaba haddii aad fahantay marka ka shaqeey kuwan try it isku day inaad ka shaqeyso convert date taariikhdan waxaa u bedeshaa u dhahay text u bedel adoo isticmaalayo text to column option adoo isticmaalayo midii hore oo soo baratay ha isticmaalin oo ahayd column-ka inaad ku dhufato oo raad kale ku dul lahaado kadibna aad doorato format cells kadibna aad ka dhigto taariikhda midaan oo kale iga dhig inaad dhahdid kadib okay aad dhahdo waa kan taariikhda waxaan ka dhigay waa ka saa qoraalkaas ma reebi marka aan midaas uma baahni control zada leeyahay midaas ma reebi waxa ka rabaa adoo isticmaalayo date soo bar waxaad soo dhigtaa marka groupka WhatsApp-ka sawirka soo qaad qaabka sawir lagu qaadaya window waxaad la qabanaysaa plus BRTSC meesha qoran tahay oo screenshot u dambeeyay halkaas taaw haddii kale waxaa isla qaban kartaa window shift S isla taabanaysaa kadib waxaa ku soo baxayo calaamadda crop-kana ku soo baxaysa halkaas crop-ka sameynaysaa sidaas oo kale u baahanaa oo kale halkaas ama u baahanaa intaas rabaa saas u jaray kadibna waxaan dhigayaa computerka ayaan ku safgaraysanay meeshan u baahanahay waa kana halkaas ku dhufanaysaa application-ka waa kana waxa la yaqaanaa snapping tool halkaas ku dhufanaysaa kadib waxa leedahay meesha ku safgarinaysa save leedahay ama share meesha waa dhigi kartaa haddii kale copy inta dhahdo ay meesha dhigi kartaa waa isku mid waxaan filayaa hadeer inaad fahantay delimited iyo fixed width text column inta ay hoos imaato fadlan isku day inaad ka shaqeyso kuma sida daawashada muuqaalkan fadlan like sar muuqaalkan lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan.